السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بكسر دوادا أنسن ميديا مقالكن وحان كدو الاستاغ دونا وهسيغا إيو حاجسكا أنكو بلاوني سؤال بدن عيدتك سويديان بلسا انت بدن جوابه هدا أي اسكو ودا مريان وامحي سؤالاز سؤاشا كواد وامحي وهسي سؤاشا لباد وامحي عاجس سؤاشا دحادو waa maxay farqiga u dhaxeeya caajis iyo wahsi haddii aynu ku bilaawno wahsiga waa dal maskaxeed kaasoo ku dhaca dadka kaasoona yareeya doonista iyo firfircoonida shaqsiga caajisku waa dal jireed ku dhaca dadka kaasoo keena waxqabad la'aan qofka oo doonaya inuu wax xaqiijiyo caajisku darajo ahaan waxa uu ka horeeyaa wahsiga tamardarro ruuxi ah oo ku dhacda awoodda qofka wahsiga iyo caajiska waa laba eray oo kala duwan macna ahaan iyo qoraal ahaanba balse qorayaal kala duwan ayaa waxay u isticmaalaan siyaabo kala duwan kaasoo ay kolba u isticmaalaan midka carabkooda u soo horeeyo ibn xajar markuu macneeyay labadan eray waxa uu ku fasiray ama uu ku macneeyay sidan wahsiga waa qofkii oo wax qaban kari waaya isagoo leh awoodii iyo xoogii caajiska waa qofkii oo doonaya inuu wax qabto haddana aan awoodeyn sheekh maxamed bin saalax al-cuseymiini ayaa labadan eray waxa uu ku kala saaray sidan wahsi waa qofka oo kalita dhanka doonista wahsi waa qofka oo kalita dhanka awoodda haddii aynu soo qaadano wahsiga waa xanuun macnawi ah kaasoo faraba'an ku haya bulshaweynta caalamka waxaa la sheegaa dadka laga helo dabeecadahan wahsiga laakiin lagu kala duwan yahay heerarka uu gaarsiisan yahay bini'aadanku waa noole aad u raaxa jecel sidoo kalena aad u horumar jecel waa laba arrimood oo aad u kala durugsan maamaha Soomaaliyeed ayaa oranaysa dhib dabadii bay dheefo timaadaa halkan waxaa inooga cad in dhibtu rafaadku qosla'aantu ay tahay wadada lagu gaaro guusha daba waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu ku qanciyay fadlan haddii uu ku qanciyay commentiga hoos noogu qor